waxaa la gaaray xilliga ugu qiimaha badnaa oo muddo dheer sugayseen xilligaas oo ah inaan aqoonsano shakhsiyaadka qiimaha leh ee ku dayashada mudan oo si mataqaanaa ay sanadkan hirdo bilowday inay bixiso awards marka insha Allah markaan qof ugu yeero waxaan u yeerayaa qofka awardka la siin doono iyo qofka awardka gudoomi doono marka waxaan doonayaa maxaad uga celinayaa waxay tahay in hirdo ugu sharaftay inaan qaybtan aan barnaamijka ka qaato marka waxaan ka codsanayaa inaan dhageysano aan qayb yar sugna dilaayo sida loo wada socotiin waxa way ummad dadkeeda ayaa dhisan waxaa jira nin shakhsi qaali ah oo dhalinyaro ah oo mataqaanaa ku dabadayasho mudan really oo entrepreneur ah oo shahaadada koowaad caawa la siinayo shakhsigaas waxaan jeclaan lahaa inaan intaan u yeeri koor aan u yeero wasaarihii hore Cabdirashiid Maxamed si uu u gudbiyo shahaadada عمر موجي نينك بني سميوي او dadka ma dadka iswili dadka wadanka degan qiimaha ay ku leeyahay waxa jecelahay inuu It was a very big surprise because Mr. Ali Fakhi called me and he said you need to be here tonight. It's important. I can see it is very important because I think it's very important to support each other like young people and old people. You know, I came here in the Netherlands, I had a lot of opportunities and I took them, and one of the important things is to do it the same. Take your chances. Yes. The world is big. Enjoy it and make the best of it. Thank you. inaan u yeero safiirkeena oo guddoonsiin doona shahaado labaad safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Belgium iyo qaramada midoobay ila soo dhaweey Dr. Ali safiirka u fadhiya European Union Soomaaliya iyo waddanka Belgium waxaa la guddoonsiinayaa waxa weeye nin really caan ah oo loo baahan oo meel dheer uga yimid oo really ku dayasho mudan waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed u qabto waa nin wariye caan ah oo mataqaanaa aad iyo lagu macjin soo dhaweey Cabdillah Xiriiri markaan ku soo noqday mikrofoonka aad iyo aad baa hirda ugu mahadsan tahay in saahilin ayay garteen biladan qiimaha leh walaalayaal waxaan idinka codsanayaa nin ummadda Soomaaliyeed qaalib ku ahaa anigana aan aad saaxiib dhow ahayn in faataxada ama martaan faataxada xasan awke oo dhawaan geeriyooday way inta kaliya uu qaban karay faataxada loo maro anigana kaalin weyn buu shakhsiyan igu baneeyay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku baneeyay marka laga tago oo dee fagaarayaashan oo kale anu waxay dhaahdeen maqsin xiro baan ka dhaxdaa marka fagaarayaashan oo kale isaga lahaan jiray weliba fulan jiro oo dhajay saaxiibkii looga yeeri karo marka inaad faataxada martaan aad iyo aad loo waxaan kaloo jecelahay inaan marka hore soo dhaweeyo qofkii guddoonsiin lahaa shahaadadan qofkaas oo annadan guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaa jiray duqa magaalada Muqdisho Maxamed Nuur Tarsan ila soo dhaweeya waxaana shahaadada guddoonsiin doonaa oo hirdas ku garatay dadaalkeeda iyo wanaagga ay ka wado waa gabar Soomaaliyeed maanta gabdhaha maanta ay leeyihiin gabadhan waxaa la yiraahdaa Yasmiin Ali Calas waa gabar qoraa waxay wax ku qortaa luqadda Netherlands waddanka looga hadlo really waxa way ku deeshay wadallada Yasmiin mudan tahay ما إنا عندها مدلية برموي martideena qaaliga ah ee soo dheeraatay aad baan ku mahadsantahay caawa waxa kaliya oo aan tan jeclaan lahaa inaan u sii gudbiyo qof aad u qiimo dheer waxtarkeeda dadnimadeeda magaceedu aad u dheer yahay
iyo waliba waddaninimadeeda Faadimo Faarax gabdhaha Soomaaliyeed haddii ay wax qabtaan ma muuqdaan magacooda badanaa lama sheego Faadimo waa simbol bay u tahay gabdhaha dumarka Soomaaliyeed oo dhan waliba hirdo yani waddanimada ay Soomaalida ka qaadatay yani waa in magaceeda meel walba laga sheego waxa kaloo aan ku mahadinayaa tuulad asxaabteeda markasta caawiya kaligeed meesha ma aha waa Saalax waa Cigaal waa Shakuur iyo waxa kaloo aan caaw halkan aad uga hambalyeeyaa ninka wadaniga ah ee meel kasta oo magaca Soomaali marka la yeero taagan Cabdi Baaqir intaan gudoosin koor waxaan jeclaan lahaa inaan u yeertiinin qayb ka qaaday dhiska mataqaana sportka Soomaaliyeed oo shahaadada sharaf gudoosin doono Axmed Sheel ila soo dhaweeyay waxaana la gudoosin doonaa Cabdulqaadir Wardheere oo aragtaan ninka artistka iyo mataqaana dhaqanka ka sheegay Cabdulqaadir Warsame ila soo dhaweeyay waxa wada dhaqankiina haysta haddaad Sacuudiga tagto qofka Soomaaliga Cigaal ku xiran yahay cambuurka cadaan oo soo gastay haddaad tagto Pakistan dadka Pakistan ka wasitaan haddaad tagto meel kale meel alla meesha tagaan bay u eegayeen war waxa leeyihiin ma jiran على كل أحوال هذا برنامج كمان تلاقي markayna sida u hadlo waxaan ku mahad celinayaa mar labaad walaalihii soo abaabulay barnaamijkan hirda ilaahay isha baxarka ilaahay aad u maasiyahay wadan inuu soo noqonayo calaamadihiisa waxaa lagu gartaa dadka u istaaga oo ka shaqeeya inay calaamadaha wadanka ay leeyihiin dib u soo dhisaan annagu waxaan leenahay wadanka Soomaaliya especially wadamada European Unionka safaaradeena Belgium oo ku taala oo European Unionka oo danjiriga ka fadhiya caawa dad Soomaaliyeed ayaa jira oo idinka ka mid yihiin dhammaan balaag shakhsiyaad gaar ah oo aad u mudan oo waqti geliyay inay mataqaana ay safaarada dib u soo dhisanto marka waxaan jeclaan lahaa intaan u yeerin koor inaan u yeero danjiraha Soomaaliya u fadhiya European Union iyo wadanka Belgium inaan u soo dhaqan على سعيد فخي waxaana shahaado la guddoonsiin doonaa la soo dhaweeyay ninka wadaniga Soomaaliyeed loogu magacaabo loo yisooyo Axmed Warsame السلام عليكم runtii waxaan aad ugu faraxsanahay caawa in hirda ay garatay in abaalmarin ay siiso Axmed Warsame marka Axmed Warsame waa ninkii u dagaalamay safaaradda intii ay xirneed guriga safaaradda guriga safiirka Axmed Warsame waa nin Soomaali runtii dhab ah maanta oo dhanna wuxuu jecel yahay dad inuu kaalmeeyo waxa safaaradda uu ka qaato iyo waxa uu geliyo iskuma dhow maanta oo dhan dad buu qaadayaa dad buu meel u kaxeynayaa ماشي مركان يمد هذا كور قبضين ماشي محمد ستيد بيش سبتمبر 2013 runtii haddii ninkan
tusanaan leh shirkii weynaa oo new dealka 8 beri ka hor baan imid ninkan hadduusan halen waxyaabo fara badan uma qabsoomineen safaaradda waxaan soo istaagay ducayta waxaan rabaa inaa ogaataan arrin ninkan Soomaaliya inay istaahisho inay taalo kusto waxaan u leeyahay taalo inay u dhisto waxaan u leeyahay waxa waaye qalbigiisa iyo jaceylka uu qabo safaaraddaas runtii iyo ummadda Soomaaliyeed jaceylka uu qabo mid la qiyaasi karo maaha waxaan rabnay dowladda Soomaaliyeed inay shakhsiyaadka Soomaalida ee waddanka wax u tara ee naftooda u hora inay qiimeyso dadkeena wax qabta dadkeena wax tara dadkeena suugaanyahanka ah dadkeena waddanka difaaca daga badan baan xuskiisa ka qayb galnay hadda ka hor waxay ahayd in meel la saaray ninkan hadda waxay ahayd wasaara qaarajiya in ay inuu ku dhaganaado mas'uulkiisa haddaan dhagax laga samayn karin inuu mas'uulkiisa ku dhaganaado waa Soomaali dhab ah waa nin waddankiisa jecel waxaan aaminsanahay hadiyadan waa hadiyad yar laakiin qiimaha ku fadhiday qulubta hadda la dareensiiyay ninka wax qabadkiisa wallahi wax weyn waxaan rajaynaynaa safiirka waxaan ka codsanaynaa ismka magaciina safiirka waxaan ka codsanaynaa eedda ayagu ha saarnaatee inuu warqad qoro in la abaal mariyo ninkan in la abaal mariyo ninka wasaaradda ka wasiirka iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u raacanayna hadayna dadkan abaal marin waddanka ninkan waddanka uma baahna hadda waxba uma baahna laakiin in la dhaho waa mahadsan tahay waddanka أولاً عبد عينه إلهي إنه أبال مريض إلهي لو حوال مريض إلهي إنه أبال مريض نكتني هذا المعنى عصبات بحن إلهي نص أريد لا تحاول أنتي إن نشكر أحسن بك الله أبال مريض وأنا ويا الشعب ولا أبال مريض إلهي بالحوينة إبراهيم استقل هو الشيء وأنا كده أنا واحد الشيء عاول نقول بيننا هس أمان وأصل أبو أماني فك بين وحدتي وحضروا وين دنيا دي إلى قصة صار هس أبو أماني وحضر كيس يعني وحن أرنا رنتي أحمد ما دام أن كم إذا عدت كل سو شقيين أن لسه شقيين أحمد واجي سفارة أنت دولة سلقة دعين ما أحد ذلك يسيئون وصومال لمدي سوء تاجنادو وقت دبعته هذا يدعى وحد اللي جرت أنا أربعة كائنا كثيرة أنا مرمر كقاركود وقتي إذا دبعت سدات اللي سجاشن كي dadkii ogaaba in marmarka qaarkood mushaharka naga soo daahi jiray safaaradaas korontadeeda iyo gaaskeeda iyo interkeeda suusan u damin Ahmed ayaa abaalkeeda iska leh marka maalmaha kale bilowday ilaa iyo waxay furantahay safaaradu laga yaabay inay kontameeyo sano furantahay 60kii baa la furay dadka 63 marka waa konton iyo waxay furantahay 2 sano intaas uu taagnaa Ahmed oo uu dhiigeedii dhacaankeeda leeyahay waa mahadsantiin أنا بقول لكن عندها واحد يقول يا بلد من شاعر السودان وعيان العين يبكي بأي خدمة هذا مشكلة عين قلبك كوني لما تبغى بارو برا يقول كنا
ama residensiga ama ambisiga niman dulaaliina ayaa jiray inay isbitaalaad ka dhigtaan dhibaatooyin dheer baan galay nin Francois yiraaho Francophone ayaa aad u daafacay midaan mar walba ku soo celiyo waxa weeye journal standard oo 2 milyan oo Flemish akhristo afka Flemish ku soo baxo ayaa wuxuu qoray gabar Soomaaliya abaarihii Kismaayo ilaa afmadow ka dhacay marka qofta waa gabar caata cunug yar bay naaska nuujinaysaa cunugna waa caruur kuusan yahay afka Flamishka waxay ku yiraahdeen kinderen van Soomaaliya drinking urin caruurta Soomaali kaaliya and the mother is starving hunger hooyooyinkana baahay u dhinta jaridadii baa naag baa joogtay Flamisha oo juuja marka guddoonka Supreme Court-ka saddex lawyer bay minashiibida qabsatay dad badan oo Soomaaliya dulaaliin oo daafacayay marka talada waxay leeyihiin Soomaali ma soo noqonayso aan gadna guriga iskoolaad laga dhigaa narbe lacag yar nama siiyo andhow la iska birin qaysta lacagta gurigaas waxaa la galay 1970 dowladdeena 10 sano ijaar ku jirtay dowladda gacanka loo sheegay jeegii bay soo direen 88 Umar Saalax oo wasiir ahaan jiray ayaa Brussels joogay waxaan aragnay guriga ambisiga Avenue Frank Roosevelt ambisiga Avenue Frank Roosevelt waxa soo jeedaa maqaawir intii maalka lahaa qoladii rabaan noqdaan kama hadlayno waxa dhacday وإلى بسم الله الرحمن الرحيم waxaa dhacday guriga markii loo soo dhigtay residensiga maana ambisiga waxaa dhacday inuu yahay ninkii injineerka ahaa Fernando Epsis oo ahaa Suez Canal ninkii dhisay marka guriga kan dowladda Belgium-ka rag madaxa oo wasaaradda weyn hayaa rabeen company magaciisa inay ku gataan ay markaa qaataan si museum looga dhigo dacwadii naag baa joogtay Flamisha oo dhalinyaro ah waxay u tiriiday dacwada meesha qabiilka waxa weeye afka Los Angeles waa wadadii dagaalkii Napoleon loo maray ambisiga iyo jidka waa meesha Napoleon maray waxa kaloo soo maray ninkii jananka ahaa ee Napoleon diray maray Ingiriiska ahaa sidaas iyadoo ayaa waxa ay tiri hadal waxaan ku raacnaa anaga waxaan nahay dad dagaal si xun u galay waxaan victim u nahay dagaal sokeeyo iyo dad balaa oo dadkii laynay dhulkan haddaad iibinaysaan laba kaliyaad ku iibin kartaa Soomaaliyo deentii bixin weysay in la xaraasho lacagtooda meel loo dhigo intii kale la qaato labadaba meesha ma taalo waxa weeye labada guri anaga waxaan ka codsanaynaa 63 baa wadanka nimid dad waxaan nahay rifaad helay inaad naga joojisaan dhibka sidaas aan ku soo gabagabeynaya dhamaantiin